السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله بارك الله فيكم الله إذن بركايو waxaan jecelahay insha Allah inaan idinla wadaago as'ilaat maca alqur'aan su'aalooyin ku saabsan qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala su'aasha ugu horeysa raba inaan idin weydiiyo waxay tahay kam maratan ذكر الحيوان المعروف بالعجل في سورة البقرة كم مرة ذكر الحيوان المعروف بالعجل في سورة البقرة ومعنيه ذي هاي يمسجر أيها الله الشيء حيوانك لو يقانو العجل قرآن سورة البقرة نحن يمسجر بالله الشيء حيوانك العجل لا يراد يمسجر بسورة البقرة لو الشيء هذيك الله قال tirada insha Allah aniga xagga dambe ka soo sheegi doona kalabaad waxay tahay kam ma huwa akbaru raqamin warada fi surati al-baqara ma huwa akbaru raqamin fi surati al-baqara ma huwa akbaru raqamin warada fi surati al-baqara waa maxay numberkii ugu weynaa ee suratu al-baqara dhexdeeda ku soo arooray waa maxay raqamkii ugu weynaa iyo numberkii ugu weynaa ee suratu al-baqara dhexdeeda lagu sheegay numberkii tirooyinka caadiga ayaa la tirsado numberka ugu weyn ee Ilaahay suuratul baqara dhexdeeda ku sheegay ayaa laga rabaa inta uu yahay barakallahu fiikum saayis taala waxay tahay laba aayado quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku jira oo labada aayadood mid kasto kamid ah lagu sheegay laba malag magacooda Allahu akbar hunaka aayatayn fi al-Qur'an al-Karim fi kulli minhuma اثنين من الملائكة فما هاتين الآيتين هذه قال العربة إن شاء الله راسل معي على راسل الإجابة على الكومنت على